badan waxaynu ka hadalnay maahmaaho bini'aadanka quseeya ama dadka quseeya. Hadda maanta waxaynu eegaynaa maahmaahda geela iyo maahmaahda YouTube-ka. Keebaa sabankanaynu joogno xoog badan, keebaase dadku xiiseeyaan, keebaase faa'iido inoo leh ama inoo lahaan jiray. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan waad salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Soomaali Cooking & Culture. Inta habeenootii habeen wanaagsan, inta maalinteena maalin wanaagsan. goor kasta iyo goob kastaynu joognana Allah subxaanahu wa ta'aala khayr baynu weydiisanaynaa. beriyahan waxaan filayaa waynu kala raagnay, xoogaa waxaad moodaa inaan channelkii waxba saasi soo gelin. waayo alxamdulillaah waa la nabad qabaa maasha Allah walaalaha igala socda hawada. laakiinse dee waa mashquulo adduunya weeyaano, marna waad mashquulaysaa, marna waqti baad haynaysaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin. laakiin inta la nabad qabo dhammaantiina ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaa idinka rajeynayaa caafimaad qab, cimri dheerar, cibaado suuban ilaahay idankiisa, arsaaq waasaca iyo iimaan kaamila ilaahay idankiisa. intaa ka bacdi maanta maxaynu wadnaa? maanta waxaynu wadnaa barnaamijkeeni maahmaahaha oo aynu ku eegayno maahmaahii hore iyo bal hadda dadku siday isu bedeleen. subxaanallaahi ayaynu isbaaldhigaynaa insha allahu tacaala. bal laba shay baynu isbaaldhigaynaa. shay berigi hore soomaalidu aada ugu darayd, aadna agtooda qiimo uga lahaa, iyo shay imika aad mooda intay xaggiiba kasoo leexdeen inay shay kale imika loo soo wada wareegay. soo waxaynu maanta soo qaadanaynaa maahmaahda geela. waxaanaynu eegi doonaa bal hadda maahmaah inagu aynu samaynayno maanta aynu eegayno iyaduna say isu bedeshay nolosha hadda aynu ku jira wadcigan aynu joogna. waxa lay geela maahmaahdiisu waxay ahayd oo ka mid ahayd waxa lay geelo ilo dhashay. ilo ayuu geelu dhashay. waa ila lis, waa ila rar, waa ila layli, waa ila qabo, waa ila dhufaan. geela markaad eegto gees walba waa ila raac, waa ila buu geelu dhashay baa layidhi. marka wax kasta ila raacda. haddaba maxaan maanta uga jeeda? geeli sidaa maasha Allah qiimaha badnaa, hadday gabadh laga bixi ahayd iyo hadduu haa yacni dad dee dhibaato kala gaadho isa siiyo, iyo hadduu haa qof sidiisaba u dhaqda. oo marka qofka geela leh uu ahaan jiro qofka de milyan dheera maanta maasha Allah. waagii hore ahaan jiray, imika waxa bedelay YouTube baa intuu bedelay ayuu weliba si xun u bedelay. YouTube-ku halku geelo ila ka ahaa ila lis, ila raac, ila dhaq, ila layli, ila dhufaan, ila rar. YouTube wuxuu noqday maxaa qofku wuxuu odhanayaa maxaa views ku helaa, maxaa dadku daawanaya, maxaa la jecel yahay, maxaa soo baxay, maxaa reaction ka bixiya, maxaan koobiyeeya, maxay heblaaya ka hadashay, muxuu hebel ka hadlay. xaaladdu waa maxaa. laakiin maxaynu ilowne? maxaan duubaya? waayo Allah subxaanahu wa ta'aala qof kasta laba malag garbihiisa saaray oo ka qoraayo sharka iyo khayrkaba. haddaad YouTuber noqoto ama aynu YouTuberad aad noqoto, waxa inoo dheer waxaas waxaynu inagu duubayno oo aynu record garaynayno. aakhirana qofka murmaaya ma jirta bay la tahay fiidiyoga maalintaad duubtay iyo saacaddaad duubtay iyo waxaad ka hadlaysay. maxaa views lagu helayaa? dadkii qolba meel bay la gashay. qof caayi bay la gelaysaa, qof waxay la gelaysaa subxaanallah iyo inuu noloshiisa ka sheekeeyo, qof waxay la gelaysaa istusnimo iyo inuu metelo nolol aanu yacni marka runahay inuu ku jiro oo intaa yaru social media isu soo dhigayo ku jiro. qof waxay la gelaysaa inuu noqdo qof bilaa siraba oo hadduu maanta caagad biyaa soo iibsado kor soo qaaday caagadaa biyaana maanta yaa maxaan dadka tusaaweyn moogtay, ama maxaan duuba, ama maxaa la jecelaya, ama maxaa la eegaya. qof waxay la gelaysaa oo okay maxaan lacag ku helaya, ma odhanaya ma xaaraan baa ma xalaal baa, ilaahay ma raalli buu ka yahay, ma ka ahamiya akhlaaqdayda iyo aniga sharaftayda iyo sumcaddayda iyo ta ehelkayga iyo ta ubadkayga iyo ta sawjkayga iyo ta yacni communitygayga ama dadkan kasoo jeedo wax ma u dhimaysaa mise uma dhimayso. ma jirto sheekadaas. waa maxaa views laga helaya? imsaa dhowr boqol kun daawan karaan, imsaa 500 kun daawan karaan, imsaa 500,000 gaarsiinaysa. intaasoo dhan waxaa inooga khayr badan. bal hadda fiiri, waxaa inooga khayr badan oo inooga wanaagsan maxaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala raalli ka yahay. maxaa haddii maanta aan dhinto oo aan qabriga galo aan isleeyahay yacni kaama nixinayso. waayo bini aadamku meelaha ugu xun oo ugu naxdinta badan laynooga sheekeeya waa qabriga weeyaan. markuu qofku ku cidloodo adduunyada haddaad naxdo cid unba hareerahaaga joogta.
laakiin qabriga markaad gasho ee intaad ka baxda caalam iftiimayey oo guuxayey oo sanqarayay oo waxa oo nooc kasta aad ka dhex baxdo aad gasho meel keligaya haddana ay ku dheeraato cabsiye yacni waa mid subxaanallah wax aad record garaysay ama aad duubtay inay kaasii nixiso oo adigaad cadow naftaadii kusii noqoto markaan eegay dhan walba waxaan aad uga yaabay maahmaah cusub oo ah maxaa youtube-ku iska leeyahay maxaa views ku helaa maxaa dadku xiiseynayaan maxaa la jecel yahay maxaynu been sheegnaa maxaa brank loo yaqaana bal fiiri brank bay dadka odhanayaan brank waa been caadiya waa been aad arkayso oo run aad caadi oo arkayso dadka laga iibinayo marka Allah subxaanahu wa ta'ala intaynu ka cabsano qof walba cidnaba ha u danaynin aduu kaliya naftaada u danay haddaad wiil tahayna naftaada u danay haddaad gabar tahayna naftaada u danay maxaa biri laygu xisaabinayaa iyo maxaan biri bangigayga ugu tegayaa taa qof walba ka fikir anoo naftayda ku horeysiinayo kow markaad wax duubayso marka hore intaana duubin wixii iska soo eeg horta ilaahay raalli ma ka yahay waayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaynu raalli gelino ilaahayna subxaanahu wa ta'ala isaga ummadda inoo sakhariyo ummaduna markaas waxaan ku iyaga ina raalli gelinayo noo imanaya laakiin se haddaynu ilaahay ka cadhaysiino weligaaba aad qayliso weligaaba 100 kun ku eegaan weligaaba aad soo orordo weligaaba aad waxan samayso haddana ogow dhamaadka waxan aad wadaa waxay ku dhamaanayaan meel aan guul iyo khayr lahayn taasuna mid ayaan daraa qof intuu ku soo jiro waxbarasho amana loo dheer soo waday oo aakhirkii u dambeeyay ku dhamaatay faa'iido daro wax ka xumi ma jiraan yani wax aad looga murugoodo weeyaan naftayda tiina waxaan ku waaninayaa walaalahayga youtuberska ama caruurtan waalidka oo youtuberska ah ilaahay marka u horeysa raali gali maxaadana iska ilaali aan ku helayaa laakiin waxaad eegtaa maxaa igaga soo noqonaya aakhiriya adduunyadeedaba ee dhibaato iga soo gaarayo waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh